alxamdulillaah oo bacd dhacdadii afduubka ahayd ee Xafsa waxay ahayd dhacdo qalbiyadeena ay wali la ilmeynayaan waxaana xusid mudan in dhacdooyinka noocan oo kale ah ay gabdhuhu ka taxadaraan haddaba waxaan ku wadaa gabadh yahay 10 qodob oo ku ah badbaado iga dhageyso oo u gudbay gabdhaha kale muslimaadka haddaad leedahay dhacdadii Xafsa ee ka dhacday Nairobi Kenya waxay ahayd dhacdo ay geysteen rag aanan diir naxaynin oo aanan Soomaali ahayn ogow kuwa badan oo middan ka xun ayaa ka dhaca deegaanada Soomaalida oo ay geystaan rag Soomaaliyeed ilaalinta erdiga iyo sharafta gabdhaha muslimaadka waa laga maarmaan gabadh yahay sameyn sidan si aad u badbaado qodobka koowaad in aad guriga ku nagaato gabadh yahay waa ku badbaado qodobka labaad marka aad banaanka wax uga baahato yaani suuqa in aad adeegsato dhalinyarada walaalahaaga ilmaadeerada ilmaabtiyada ama kuwa aad qaraabada tihiin amaba aan dhahaysaygaagee taasina gabadh yahay waa ku badbaado qodobka saddexaad haddii dantu ay kugu qasabto in aad banaanka aado cid aad adeegsatana aad weydo waa inaad sii weysa qaadataa xirsi-xidhna aad samaysaa yacni adkaarta subaxii iyo galabtii gurigaaga ta aad kaga sii baxaysana ha ilaawin gabadh yahay middaasina waa kuu badbaado qodobka afraad waa in aad si fiican u xijaabataa oo aadan xidhan dhar muujinaya jidhkaaga si aysan kuu hungurayn kuwa qalbiyada liita gabadh yahay middaasina waa kuu badbaado qodobka shanaad in aad lahaataa gaadhi kuu macmiil ah yacni gaadhi aad keligii magaalada ka raacdo oo kuu gaar ah kaasoo ehladaadu ay garanayaan lambarkiisa teleefonka taarikadiisa iyo hoyga uu kaga nool yahay halka aad ku nooshahay gabadh yahay middaasina waa kuu badbaado qodobka lixaad marka aad baxayso waa in aad ogeysiisaa qoyskiinna walaalaha iyo waalidka amaba sayigaaga taasina gabadh yahay waa kuu badbaado qodobka toddobaad marka aad gaadhiga korto ka taxadar in la dallaco amaba la xidho muraayadaha daaqadda gaadhiga hana ka agfogaanin ogow gabadh yahay middaasina waa kuu badbaado qodobka sideedaad haddaarnaada teleefankaaga gacanta haddii aad halis dareento si degdega ugu dir fariimo oo la xidhiidh ehelkaaga adigoo u sheegaya gaadhiga aad la socoto iyo halka aad ku sugan tahay qodobka sagaalaad haddii ay danta kugu qasabto in aad raacdo gaadhi aadan horay u raaci jirin qor taarikadiisa gaariga qor lambarka darawalka oo hubi wac tijaabi in uu dhacayo kadib macluumaadka u dir ehelkaaga si loola socdo badqabkaaga gabadh yahay middaasina waa kuu badbaado qodobka tobnaad ka fogow in aad darawalka ama qof gaadhiga kula saaran uu ku siiyo wax la cabo ama wax la cuno sidoo kale iska ilaali in aad keligaa gaadhi raacdo gabadh yahay ogow middaasina waa kuu badbaado feejignaan dheeriya muuji iska daa socdaallada aad gelayso ee aanan ku ahayn danta iyo ragga ku gayee aad socdaallada la samaynayso dhowrso oo dharkaaga xidho hoygaaga ku sugnow ogow middaasina waa kuu badbaado haddii fariintana ay ku soo gaadho waxaan kaa codsanayaa in aad gaadhsiiso walaalaha kale ee muslimiinta si ay gabdhaheennu u badbaadaan aniga iyo adigana waxaan ilaahay inooga baryayaa inuu miisaankeenna xasanaadka inoogu xoojiyo maalin aan maanta uga baahi badannahay